oo qaxoonti Afrikaana ayaa wali la keenaya xeebaha Talyaaniga kuwaasoo laga soo badbaadinayo badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. Cabdicasiis Xuseen ayaa safar shaqo ku tagay Yurub si uu u soo ogaado safarka halista badan ee qaxoontigan ay soo galaan iyo waliba waxa ay kala kulmaan qaaradda Yurub. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay. Maraakiibta midowga Yurub ayaa waxay xeebaha dalka Talyaaniga keenayaan muhaajiriin fara badan oo ay ka soo badbaadiyeen badda Mediterranean-ka. Muhaajiriintan ayaa iyagoo raxan-raxana waxaa lagu soo gurayaa dooniyo ka soo baxaya xeebaha dalka Liibiya. 2 maalmood oo aan ku sugnaa xeebaha koonfurta Talyaaniga waxaan goobjoog u ahaa in ka badan 1,600 oo qaxooti cusub ah oo badda laga soo badbaadiyey. waxaan ku suganay koonfurta dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Mussalo sidaad gadaasheeda ka arkaysaan waxaa taagan mid ka mid ah maraakiibta midowga Yurub oo soo badbaadiyey in ka badan 500 oo muhaajiriin ah oo ka yimid dalka Liibiya. 500 ee muhaajiriinta waxaa ku jira ilaa 9 qof oo Soomaaliya oo dumar ay ku jiraan. mid ka mid ah dumarkaasi ayaa ila hadashay iyadoo markabka saaran. hay-adda IOM ayaa sheegtay in sanadkan oo keliya ay 3,000 in ka badan oo muhaajiriin ah ay badda ku dhinteen iyagoo doonaya inay Yurub soo galaan. haddaba muhaajiriintan cusub ee Yurub soo galaya dalalkee ayay ka imanayaan? waa kan sarkaal ka tirsan IOM waan kula kulmay dekedda Bozzalo ee koonfurta Talyaaniga. bilihii ugu horreeyey ilaa iyo bishii Agost sanadkan 2015 tirada Eritreyaanka muhaajiriinta ah ee halkan soo gaaraya waxay ahayd 30,000 oo qof. waxaa kaloo iyana jiray qaxooti reer Suudaan ah oo 10,000 gaarayay. muhaajiriinta ayaa intaan dooniya laga soo saarin Liibiya waxay dhibaato ka soo gaadhaa safarkooda saxaraha iyo weliba tacadiye ay u geystaan dadka tahriibinaya. qaar ka tirsan muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee Talyaaniga soo gaaray dhowaantan ayaa waxay iga sheekeeyeen wixii ay kala soo kulmeen safarkooda. gaariga Cabdibilaah waxaa loogu talagalay 15 qofood waxay nagu saaray 40 qofood way isku kan kurfa fadhiisiyeen. dumarka lama xushmeenayo saa'ida loo dilaa. anigaas arkaysa 10 mar la dilay oo kaliya xataa bir la iga dhufta ay xanuunayso. waa soo baxnay 9 bari wadada ku soo jirnay. inta markaan marayno 6 maalmood baa waxaan naga dhintay wiilkii ugu horeeyay oon iyo haraad iyo gaajo nagu dileen. gaajo iyo haraad waan la kulannay. waliba saxaraha waxaa u daran qaybta Liibiya laga soo galayo. maxaa yeelay dhibaatadeeda badan Liibiyaanku dadka tubay la dhacayaan, gaarida riix bay leeyihiin, meel orax bay ku istaajinayaan, iyaga way iska cunteynayaan, adiga cunto ma haysatid, biyo ma haysatid, waxay ku siinayaan malaha. 2 bari gaajo ayaad ahaanaysaa, qofkii dhintaa iyo qofkii badbaadaa. muhaajiriinta ayaa marka la keeno xeebaha Talyaaniga waxaa la geeyaa xeryo kadibna waxay bilaabaan dhaqaaq cusub oo ay ku tagayaan magaalooyinka waaweyn ee Talyaaniga ee dhinaca waqooyi ku yaala sida Milan iyo weliba Roma, halkaasi oo ay doonayaan inay uga sii ambabaxaan dalalka kale ee Yurub. waxaan ku suganahay magaalada Milan ee dalka Talyaaniga. hadda waxaan u socdaa xarumaha laga helo ama meelaha isugu yimaadaan dadka muhaajiriinta ama qaxootiga ay waddanka soo galay hadday noqon lahayd kuwa bariga Afrika ka yimid sida Eritreyaanka, Soomaalida iyo weliba Itoobiyaanka iyo Afrikaanka kale. magaalada Milan waxaa la ii sheegay inay tahay meel marka ay qaxootigu yimaadaan ay iska soo dhiibaan koonfurta Talyaaniga ay yimaadaan oo ay uga soo gudbaan wadamada kale ee Yurub. marka waxaan doonay bal inaan booqdo meesha laga raaco tareemada, xarunta weyn ee tareemada iyo weliba meelaha kale ee ay dadka ajnabiga gaar ahaan isugu yimaadaan. waxaan la kulmay 2 wiil oo 16 jir ah oo Soomaaliya oo ka yimid gobolka Soomaalida ee dalka Itoobiya oo dhawaan dalka Talyaaniga soo galay. mid ka mid ah labadaasi wuxuu tusay nabarro ku yaala oo jirdil ay u geysteen magafayaasha dalka Talyaaniga ku sugan. dhacay uu jir dilay oo qaraacay uu dilay marka gacanta ayeen wax iga dhaceen sida naqshada noocan oo kala marka iyaa ku geystay dhibkaas waa dilkii magafa xagee jooga Liibiya. waa gartay waxaad samaysay intaas oo dhibaato lagu geeyay? wallaahi waxaan sameeyay ma jirto laakiinse waa jirdil la iska dilay ruuxa shakhsi ahaantiisa ayaa la iska diliyaa.
qofku marka isagoon waxba sameynaa la garaacaya haa labadan wiil waxay iga codsadeen inaan geeyo meel internet cafe ah si ay ula xiriiraan saaxiibadii ay ka soo tegeen sidoo kalena uga digaan halista safarka tahriibka haye facebook baad gashay goorma kugu dambeysay facebook markii ugu dambeysay goorma ahayd xageed ka gashay markaa hadda markii kugu horeysay muddo 3 bilood ayaa Talyaaniga ka gashay ayaa khadku kugu jira maxaad isleedahay dadka khadku kugu jira maxaad istiraadeen dadka hadda khadku kugu jira asxaabtayda ay jirto waxaan soo dhigay waxay weydiiyeen macnaha wadada waxa ka jira waxaan u sheegay dhibaatada ku jirta waxaan ka soo baxay wadankii kula joognaan inaad ka soo sidoo kale waxaan Milan kula kulmay muhaajiriin cusub oo iyaguna dhinaca Masar ka yimid waxaana mid ka mid ah uu tusay muuqaal uu ka soo duubay dooni ay ka soo raaceen Alexandria oo muddo 6 cisho badda ku soo jirtay iyadoo markii dambena uu soo badbaadiyay markab Yurub laga leeyahay hay muuqaalkan goormaad qaaday bishii tobnaad waxaan qaaday 8 marka xageed ku sugnayd markan waxaan ku sugnayd badweynta dhexdeeda ku sugnayd intaan soconada ahayd wax badbaadiyo xolo kulmay marka doonidan aad saarantiina maxay ahayd doonidina soo qaaday ahayd ee ku soo tahriibnay ee saareen imise qof baad ku saarnaydeen wallahi 140 meelahaas aan ahayn dadka Afrikaanka iyo wax yar Carabiga inay nagu jireen adigu way wadayo dhowr qof oo kale tirada Soomaalida nimsa ahayd Soomaalida 130 meelahaas ay ku ekay marka muuqaalkan duubaysay dareenkaagu muxuu ahaa maxaa dareemaysa waqtigaas wallahi niyo aad baan u rafaadsanayn waqti adag baan ku jiray dadku ciriiri iyo cabsi badoo kacsanayd habeen madow bay ahayd oo xilli madow aan saarayn waxyaabo ciriiri baan dareemayay rafaad nolosha Yurub gaar ahaan Talyaanigu ma aha mid sahlan muhaajiriinta cusub markiiba waxay la kulmaan nolol adag muuqaalka aad arkaysaan waa muhaajiriin cusub oo safar ugu jira meel ay habeenkii seexdaan oo ku taala magaalada Milan qaarkoodna haddii ay waayaan meel ay seexdaan wadooyinka ayay seexdaan Raxma Abuukar Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dul umushay markab waxayna ka mid ahayd muhaajiriin Afrika ka yimid oo badda laga soo badbaadiyay Raxma oo aan kula kulmay dalka Jarmalka toddobaadkii hore ayaa ii sheegtay in markii ay doonida ka soo raacaysay dalka Liibiya iyadoo xaamilo ahayd ay diyaar u ahayd dhimasho la waa iska dawaqsanay qof soo daasho 5 bilood soo socotana waan ahaa waa uu iska soo kor geeri iyo nolol ruufta ii saamixayso Liibiya meel ugu dhali kara ma aha Soomaa Yurub waxay la dhacaysaa qaxooti ka badan 5 milyan oo mar qura sanadkan ku soo burqaday qaxootiga Afrika 90% waxay ka soo galayaan dhinaca waqooyiga Afrika laakiin waxaa jira qaxooti Afrikaan oo ka imanaya dhinaca Turkiga oo Greega ka soo galaya Yurub waxa ka mid ah wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maahir oo aan kula kulmay xerada Transiiqan oo ku taala duleedka magaalada Vienna ee dalka Austria kadib markaa meeshii aan waxaan ka soo baxnay aduu marbaan waxaan ka soo baxnay anigii nama Soomaali oo kale ayaa waxaan ka soo baxnay Atanis 9 qof ayaan kaga soo baxnay Soomaaliya marka waxaan isnahay wadankan Macedonia la yiraahdo Macedonia ama loo yaqaano ayaan isnahay kaga soo baxay lug oo waxaan ka soo bilownay magaalada la yiraahdo Bulikastro ayaan lug ka soo bilownay Bulikastro markaan lug ka soo bilownay waxa aan soconay waqtiga markaa baraf badaay wallahi de noloshu aad oo adkeed markaa waqtigii barafyada ahayd waan soo soconay markaa waxa jira buuro baraf ah oo aad fuulaso hoostoodana wabiyaal iyo wax marayaan hadii buurta aad ka dhacdo de waa bas waa nafta waa iska deesamrasa ma garanaysaa qaar ka tirsan muhaajiriinta Afrikaanka gaar ahaan Soomaalida ee aan kula kulmay qaaradda Yurub ayaa waxaan weydiiyay bal waxay kula talinayaan dadka iyagu ku sugan dalkii Soomaaliya ama Afrika ee doonaya in ay Yurub soo tahriibaan waa kuwan haddaba fariimo ay dirayaan dadkii u dambeeyay ee Yurub soo galay waajidkan waajid rafad ah waa jid aad iyo aad waxaan barinaa walaalahayga inay soo baxin haday soo dhamaan soo baxaan
dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inayna horta dadka Afrika imika joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmayaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay dee khayrkeeda Ilaahay idin kulsiyo wadana aragteen wallahi saaxiibadeedu waxa uu sheegi lahay horta Liibiya aniga ahaan Liibiya nolosheeda tan horteed waxa u dhimo weysaa taawaan isdhahay Liibiya horteed maxaa la leeyahay Liibiya dib fara badan aan ku soo arkay waxaan kula talin lahaa inaysan soo tahriibin si kastaba ha noqotee muhaajiriinta Afrika ka imanaya ee Yurub u soo socda ayaa la filayaa inay sii wadaan safarka halista badan ee ay doonayaan in ay Yurub ku yimaadaan waxayna ii sheegeen muhaajiriinta ama qaxootiga aan qaaradda kula kulmay in dalka Liibiya ay ku sugan yihiin tiro aad u fara badan oo kumanaan kun oo muhaajiriina oo iyagu diyaar u ah in ay badda soo galaan nafsadoodana halis soo galiyaan haddaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa istuudiyaha igu wehlinaya bal Cabdicasiis safarkaaga dib ayaad uga soo noqotay qaaradda Yurub ayaa tagtay kumanaan dad oo Soomaali iyo Afrikaan kala duwan ayaad aragtay maxaa kugu yaabadnaa oo dadkaasi ku soo aragtay waad mahadsantahay Sahroy dalka Talyaaniga markaan ku bilaabo waxaan goobjoog u ahaa qaxootigii ama muhaajiriinta oo markaasi badda laga soo badbaadiyay dadkaasi markaad wajiyadooda aragtid iyo waxa ay soo mareen runtii waa wax aad u naxdin badan markaad wareysatid oo aad safarkooda ka wareysatidna waxay kuu sheegayaan waxaad ka sii naxdo waxay ka oranayaan in safarka ay soo mareen uu yahay mid halis badan mid ay mataqaanaa ay dhimasho dad badan oo iyaga la socda ay dhinteen runtii waxaa kaa yaabinaya markaad aragtid caruur yar yar oo sanad jira ama ka yar oo la wado oo badda laga soo badbaadiyay oo waalidiin ay wadaan oo la yaabasad leedahay war iyagu wayba is soo biimeeyeen maxaa caruurtan loo soo gelinaya halaaga marka runtii waxay wax naxdin badan marka la eego dhinaca Talyaaniga markay soo degayeen dhibku halka uga ma harayo marka Talyaaniga la geeyo magaalooyinkii sii gudbayaan sida magaalada Milan iyo Rome qaxootiga markaad ku aragto magaalooyinka waaweyn waxaad arkaysaa inay iyagu qodoodu rafaadsan yihiin qaarkood bannaankay seexdaan qaarkood habeenkii bay saf u galaan in bal meel yar oo ay dhulka mataqaana ay seexdaan ay keenaan marka dhibaatadu aad bay u badan tahay runtii Cabdicasiis laakiin marka qof ku dhageysanaya ama ku daawanaya hadda uu arko sawirka aad siin lahayd oo intaasi ka qaran weyn muxuu yahay sawirkan siinayo aan u sheegi lahaa waxay tahay in safarku dhib badan yahay iyagana sheegay waxay leeyihiin laga soo bilaabo matalan Soomaalida oo kale laga soo bilaabo Khartoum markay ka soo baxaan safarkooda Khartoum ilaa Liibiya iyo Suudaan uu dhib badan yahay oo jidkaasi Sahara way ku dhimanayaan waxay ku leeyihiin saaxiibkii baan soo aasay aniga gacanteeda ku soo aasay uu naga haray biyo la'aan baa dhacday anigu waan dhiman gaaray dabeetana Liibiya imanayaan Liibiya waxay kala kulmayaan xiriiq qaxootiga dhib kale dumarkii qaarkood waxay leeyihiin waa kufsi bay la kulmayaan raggii waa la garaacaya marka nabarro badan baad arkaysaa marka taana waxaa ka sii daran badiba waxaa la soo gelinaya iyagoo boqolaha ama 90 qof ayaa waxaa la soo saaray doonyaro bac ka samaysan oo caaga qaarkood waxay ku leeyihiin doonida markay nala soo dhaqaaqdaba biyaha soo galaya halkaasna waxay ku sheegayaan inay halis tahay oo haddii aanay maraakiibta midowga Yurub aanay u bixi lahayn ay meeshaasi ku qurbixi lahaayeen dadkan waxa ay doonayaan inay nolol ka helaan Yurub dalalka Yurub marka ay soo gaaraan meelaha aad ku aragtay siday kula ekaayeen rajadooda iyo noloshoodaba runtii dadku marka qaxootinimada marka la soo badbaadiyay badaha laga keeno magaalooyinka ay galayaan kadibna nolosha ay Yurub ka rajaynayaan u bilaabata laakiin intooda badan waxay sheegeen inay kan iyo jabsaneen xitaa nolosha ay u yimaadeen ogow saaray safarkani waa mid qaali ah ma aha lacag la'aan inay ku imanayaan waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ka tirsan VOA-da laanteedana afka Soomaaliga safar shaqana ku joogay qaaradda Yurub oo uu ka soo warramayo kumanaanka qaxootiga ee halkaasi ku qulqulaya